waa madax Soomaaliyeed oo midba midka kale dacwo ka yahay masiirka iyo aayaka talinta dalka iyo dadka ay madaxda u yihiinna waa la leeyahay qabkoodii aan kor u qaadno qabka iyo sharafka Soomaaliyeed ee uu madaxweyne Farmaajo sheegto inuu soo celiyay ma waxaan ku miisaanaa xaqiiqaha jira mise qof jeclaysi iyo dareen qabyaaladeed Soomaaliya halkee ay maanta taagan tahay 4 sano kadib jawaabta su'aashan iyo taariikhda oo aan dib u raacno ayaan halbeeg ka dhiganaynaa gudaha iyo dibadda ayaanu markaasi u kala qaadi doonaa Soomaaliya oo ku meel gaarnimada ka baxday 2012 masraxyada dunida ay dib ugu soo noqotay madaxda qarankana waxay ahaayeen kuwo wax ka fariista xafiisyada laga go'aamiyo siyaasadaha caalamka 4 sano kadib waxaa siyaasaddeena arrimaha dibadda noqotay from White House to Abiy xafiiskiisa waxaan ku soo aruurnay Eritrea iyo Ethiopia waa natiijada siyaasad qalqalsan ee uu madaxweynuhu dalka ku hagay 4 sano ee la soo dhaafay 2016 Muqdisho waxaa marti u ahaa madaxda Afrika oo 40 sano kadib uga qayb galayay shirka IGAD shirka goobta uu ka dhacay ma ahayn xerada Xalane ee waxa ay ahayd gudaha Muqdisho calaamada Afrika oo uu ka dhex muuqdo keena midabkasan ayaa wadooyinka Muqdisho ka babanayay Uhuru Kenyatta oo aeroboortka uu ku soo dhaweeyay wasiirkii gaadiidka xilligaasi ayaa ka mid ahaa madaxda timid madaxweynihii xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyo isaga ayaa Muqdisho lagu heshiisiyay Uhuru waxa uu xal u raadinayay ganacsiga qaadka iyo dacwadda badda balse 6 maalmood kadib Sebtembar 19 2016 isla sanadkaas waxaa The Hague ka bilowday dhageysiga dacwadda badda